waa tartanka orodka ee Somaliland ee 42 kiiloomitir iyo 10 kiiloomitir. Orodyahano gaadhaya 205 orodyahan ayaana ka soo qayb galay tartankan, kuwaasi oo 22 ka mid ah ay yihiin ajnabi. waxaana kaalinta koobaad galay tartanka orodka 42 kiiloomitir oo ah kan ugu dheer orodyahan u dhashay dalka Ingiriiska, halka orodka 10 kiiloomitir uu galay kaalinta koobaad Siciid Farxaan Cumar oo ah reer Hargeysa. tartankan oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda wasaaradda ciyaaraha Somaliland oo iyagu tartankani soo qaban qaabiyay iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay xukuumadda Somaliland. xukuumadda Somaliland ayaa u aragta tartankan horumar dhanka ciyaaraha loo qaaday. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mire Maxamed oo goobjoog la hadlay ayaa sheegay in ay sanadkiiba hal mar ay qaban doonaan tartanka orodka ee Somaliland. Rasiidka ugu horeeya noocan ah halka ka dhaca wax badan buu keenayaa oo focuska dawladda uu ku soo jeedinayo waddanka Somaliland. Dhalinyarada wuxuu noqonayaa dhiirigelin inay helaan iyagoo dad jaanib oo ka khibrad badan loo ordiyaan iyo in orodku mustaqbal leeyahay inay ogaadaan. waddankan wuxuu lahaan jiray orodyahanada caana oo wada garanaysid, waxa ka dhashay Cabdi Bilo, waxa ka dhashay Jaankaraayin, waxa ka dhashay Tigirin ciida, wax la eegba ka dhashay Mooy Faarax. waxaan hibo u leeyahay orodka, hibadoodii inay maanta barkiis gareeyaan haddii ay kuwan soo guuleystaan insha Allah meel ka fog bay sii gaari doonaan. waa muddo dheer marka la eego, waa markii ugu horeysay orod noocan oo kale waliba ajnabi ka qayb qaadanayaan Somaliland ka dhacayo. waxa intaas oo dhan hortaagnaa haduu dadaalkuna wuu ku jiraa. aad baan u dadaalay priority-ga dawladdan Musabbix hogaaminayo iyo xusbiga wadda waxa ahaa in kor loo qaado sportska iyo dhalinyaradaba moorkooda kor loo qaado, loo sameeyo waxa wixii loo qaban karo. xidhiidho badan aanu sameynay, waxa suurta galay inuu maanta halkan ku qabsado. ciyaaryahanadii kaalmaha hore ka galay gaar ahaan kaalinta koobaad ayaa iyaguna goobjoog TV uga warramay dareenkooda iyo siday u arkaan guusha ay ka soo hooyeen tartankan, iyadoo ugu dambeyntii halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciyaaryahanada kaalmaha hore ka galay tartankani. It's been such an honour to take part in this race. I've never been to East Africa before, and everyone's been so friendly. When we were out on the road, people were cheering, and it's just such a great atmosphere. I love this country, so thank you so much. magacaygu waa Siciid Farxaan Cumar oo ka soo 10 kiiloomitir kaalinta koobaad ka soo galay. waxaan halkan uga hambalyeeynaa macalinkayga ee jaamacadda Karaaceen iyo macalinkayga booliska Cali Baaba iyo gudoomiyaha xeerka ciyaaraha fudud oo badan soo tababarayay. waxaan leeyahay guul aad baan ugu faraxsanahay. inkastoo maanta aan Somaliland u dhan mataliyay, waxaan leeyahay hadana Somaliland guul baan leeyahay. ciidankayga naadiga Ingiriiska waxaan leeyahay balyo boqol bal yahay. inkastoo kaalinta kooda naga qaaday, hadana kaalinta labaad baan ku dhacnaa waaska waxba dhima. insha Allah guul baan leeyahay. aad iyo aad baan salaamaya macalinkayga waqti tagamaan aad salaamay Ali Baaba. Abdullah Fadil Imaan oo dhowr jeer horena waa sheegay Abdullah Fadil Imaan oo qof markuu ku dhiirigeliyo oo ku qacan qabto waxa meel waxa هذا الأف معاه دبادات سوق عن معاه برسوا وأنا كان قرمية وأنا كان سوق جالسي هذا فضل هذا نصرامية إذا كبيرس شوغان هو شيء تشوغي يكون شوغي إذا كان كل بعض نصرامية شيء تشوغان والله إن شاء الله إذا كان هبليو. I think the Somaliland Marathon has been a wonderful event. Yeah, really good. I think it's well organised. I think it's really good. It brings people together. I think the people are very friendly, and I think it has been a wonderful event. Running is very good. It brings people. It's been lovely to see some girls take part in the 10 kilometers as well. I'm from England. waa markii ugu horeysay ka qayb qaato marathon heer caalami ah ama mid marathon amba orod oo dhan. farxad bay tahay, dareenkayga aad ayaan ugu faraxsan inaan waliba ku noqdo kaalmaha ugu horeeya 10 kiiloomitir si ay caafimaad qaba oo dareen farxadeed la ku dhamaysto. waan u mahadnaqayaa wasaaradda ciyaaraha iyo tiimka kale la shaqeynaya. waxaan ka qayb qaatay orodka marathonka 10 kiiloomitir. waxay ahayd markii ugu horeysay. waxaan ka mid ahaa ganacsiyada suuqa gobanimo. waan isku dayay inkastoo kaalmihii hore aan gelin, laakiin waxaan wasaaradda ciyaaraha iyo jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweynahaba ku dhiirigelinaya in marathonka la joogteeyo oo dhalinyarada dhiirigelin loo sameeyo oo sanadkii 4 jeer la qabto. It's my first time in Somaliland. I've really enjoyed it. I think it's a fantastic event, very good organisation, lots of crowds cheering on the way, just fantastic. Really enjoyed it. I look forward to coming back again next year.
tartankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah kaasi oo ka qabsooma Somaliland waxaana ka qayb qaatay 205 orodyahan kuwaasi oo 21 ka mid ah ay yihiin ajnabi halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium ayaana uu tartanku ka bilaabmay isla markaana lagu soo gabagabeeyay Khalid Fodadi goob joog Hargeysa